dooyinkan ayaan idiin hayaa Erdogan waxaa kale aan idiin hayaa Putin oo diiday in wax nabad ilaalin ciidana la keeno Ukraine dhanka kalena wuxuu fariin u diray madaxda wadamada Yurub hadaba xiisada u dhaxaysa Yurub iyo Putin oo markale cirka isku sii shareertay Iran oo la sheegay inay wado dhaqdhaqaaq ciidankii ugu cuslaa gantaalaheeda halista badan ayay ku kala firirisay magaalooyinka Iran oo dhan mid walba meel ay geysay hadaba ujeedadu maxay tahay yana barnaamijkan ku faahfaahin doonaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena idinku haynaa caawa iyadoo aan filayo inaad si weyn uga hesheen wararkii iyo warbixinadii aynu ku soo gudbinay barnaamijkeennii subaxnimo iyo kii galabnimo labadaba waa habeennimo talaada oo arbaca ay soo galayso barnaamijkuna waa kii saddexaad maanta aan idiin soo gudbinayo haddaba barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda magaalada Gaza sidaan horeba aan idinku sheegay dadku waxay la dhacayaan qabowga biyaha dhiiqada roobabkii ugu xumaa oo muddooyinkan oo ka da'ay halkaas Israa'iilna waa taan barnaamijkeegii hor ku soo sheegay duqeyn ay ugu sii dartay dadkaasoo intaasoo dhibaato isugu tagtay qaramada midoobay caawar ay soo saartay waxay ku baaqday degdeg in loo furo gargaarka meel kasta si dadka loo badbaadiyo waxaasoo dhan way socdaan akhbaaraadkaasoo dhan waxay muujinayaan xaaladda dadka reer Gaza ay ku sugan yihiin ilaahay dadka dhibaatada ay ku jiraan iyo mushkiladda haysata ka dulqaad dhibaatadana ka dulqaad haddaba marka waxaa soo baxay marka ninka la yiraahdo Erdogan sideedaba Erdogan xabaduusan ku ridayn yahuudda maahan nimankan afwa ku baabi'ay dunidii kale islaamka afna lagama hayo wax kale laga hayo male aamusnaanta ugu kaalmeeyeen reer Gaza tabar ma hayaan laakiin Erdogan meeshu tago nimankan afku ku garaaca adduunyadii dhan ku soo jeediya yuusan inta xabad qaato kala hortagin laakiin afka laftirkiisa oo lagu heeliyo caadi ma haddaba marka muxuu yiri wixii ka dhacay Gaza wixii ka dhacay labadii sano soo dhaafo oo bamma oo Israa'iil ay ku garaacday 14 jeer waxay ka xoog badan yihiin nuclearkii lagu dhuftay Hiroshima iyo Nagasaki dagaalkii labaad ee adduunka markii Mareykanka uu Japan nuclearkii ugu horeeyay adduunka uu ku dhuftay nuclearkaas awoodiisaas 14 jeer waxa ka awood badan oo yiri bamka Gaza lagu garaacay suntii nuclearka baa ka maqan laakiin awoodii iyo wax diridii 14 kana weyn dadkaas ma nool u dhahay wixii sidaa u galay oo hadda meelaha socda haddaan la qabano cadaalad la geen adduunka wax cadaalad ka jira malooyin yana dadkaas laynaya bam la dhacaya wuxuu raba dilaya haddana suud u xiran yahay oo kaabaynaya oo adduunka inuu sii joogo rabo isagoon cadaalad la geyn waxaas sax ma ahan weyn haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa warbixintan qoray wuxuu leeyahay Erdogan wuxuu sheegay Gaza banbooyinkii lagu burburiyay inay ka weyn yihiin oo ay ka ballaaran yihiin kuwii lagu dhuftay Hiroshima 14 jeer inay ka weyn yihiin madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa wuxuu sheegay in markaa loo baahan yahay dulmiga iyo dhibaatada halka ka jira iyo Israa'iil dhibka ay ku hayso Gaza in dunidu ay markaa ka hortagto oo wax laga qabto marka ninkii Erdogan ahaa isagu halshiisa uu qabsaday dadkana xaaladoodu waa iska liidataa way xun tahay marka hawshaas marka wuxuu leeyahay 14 jeer ayay ka awood badan tahay Hiroshima wixii lagu garaacay marka xaalku halkaas u maraa dhanka kale waxaanu u gudbaynaa Yurub iyo Putin way ishayaan barnaamijkeegii galabta aad baan ugu faahfaahiyay Yurub oo xataa shacabkeedii dhahday hal diyaar garoobo dagaal saddexaad soo socda sheekadaas ninkii ay dhaaftay barnaamijkeegii galabta ayuu ka daawan karaa hadda marka maxaa soo baxay Yurub markii ay shireen hadda waxay leeyihiin laba arina loo baahan yahay midda koobaad waxay yiraahdeen horta in damaanad la siiyo Ukraine
Ukraine haddii si kasta ay ula heshiiso Putin haddana wuu soo xaluulan wuu soo galayaa marka damaanadu waxay noqonaysaa 8 dal oo Yurub oo kuwa ugu firfircoona ayaa ciidamo inta u diyaariyo ayaan gudaha Ukraine geenayna Mareykankana waa naga warqabayaayo macalinka weyn koru nagala soconaa asaguna wuxuu ku jiri doonaa damaanada amniga ah ee Ukraine la siinayo si uu Ruushku mar kale ugu soo xadgudbin Yurub marka maxay ugu dhagantaa sheekadaas Yurub waxay aaminsan tahay waxa sheegay ra'iisul wasaaraha Jarmalka wuxuu yiri 1938 Hitlerkii Jarmalka xukumayay Yurub inuu qabsado markuu rabay marka hore meel yar oo ka bilaabay wadan yar oo xoogaa ka qabsaday wala qayliyaa kadib uu soo socday uu wada qabsaday ninkan marka waa tabtiyo siyaasadii miiska waxa u saaray Hitler Ukraine hadduu cuno yaa ku xiga Poland oo cuno yaa ku xiga Jarmal oo cuno uu soo soconaa dhaqan marka waa inaan caratuurkaas ka horgeynaa yiri ciidankeena aan geynaa Ukraine meesha inaan geyno sheekadu marka halkaas ay marayso galabtaan ka sheekay isla markii caawa waxa uu soo jawaabay Putin aqalka Kremlinka madaxtooyada Putin warka soo bax haddaba marka aan idin tuso warka ugu dambeeya ee soo baxay dhanka Ruushka ka yimid Moscow waxay diiday horta midda koobaad xabad joojin ku meel gaar ah ma rabna tiri midda labaad waxaanu ka soo horjeednaa yiraahdeen in ciidan nabadda ilaaliya ay yimaadaan Ukraine waxaas wax dhici kara ma aanay dheen Ruushka haddaba Ruushku waxay diideen labada arimood oo muhiim u ahaa Yurubiyanka oo ay ka shaqeynayeen maalmihii la soo dhaafay Yurub waxay ka shaqeynayeen horta arintan xalka inta laga helayo xabad joojin ku meel gaar ah la sii sameeyo xabad joojinta ku meel gaarka marka Ruushka lagu qaadaya Ruushkuna waa ka horeeya iyaga Ruushka maalmahan isaga gacan sareeya waa sikanaya waxa maqlaysaa magaalo qabsaday tuulo qabsaday Yurub iyo waxa kani waa dhaqaajin laayihiin Ruushka marka waxay rabaan waxay leeyihiin inta heshiis laga gaaray horta xabad joojin ku meel gaar ah la sameeyo xabad joojinta ku meel gaarka marka la sameeyo in Ukraine jaanis ay hesho sidii hub loogu geyn lahaa wax loogu farsamayn lahaa inay soo diyaarisay rabaan Ruushkuna wuxuu leeyahay xabad joojin ku meel gaar wax leeyahay jira hal mar la heshiina dikalo waa soconay taas waa lagu fahmay midda kale ciidankii ay rabeen inay Ukraine aan geynayna yiraahdaan inay ku dhax gambasiyaan hub iyo waxa kale inay ku galiyaan ay rabeen ayaduna Ruushku wuxuu yiri ciidan nabad ilaalin halka ma ku arki karo sheekadii marka way isku soo dhamaatay xaal halkaas uu bariyaa haddaba waa arki doonaa adduunkan isagoo dhan la isla xidxiidanay Putin Yurub u xidxiidanaya wallahi wadi garaaca wali China meel halkaas uu jooga Taiwan haddaan qabsanaa wali Israa'iil waa tan u jeedaa marba meel ku boodaysa xagga ku bood yab adduunki waa la yaab meel kasta daba ka hulcay meel kasta daba ka hareeraha adduunka daba hulcayo way haddaba marka qadar xayisiisa kadib waa isku soo noqonaynaa nimankii Iiraaniyiinta ahaa oo wax aan weligeed la arkin laga soo sheegayo wadankooda oo ah in meel walba gantaal uu socdo baabuur saaran magaalo kasta tuulo kasta gantaal ay geynayaan sababtu marka maxay tahay nimanku waa diyaar garoobayaan ayaa leeyahay haysiiska kadib dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena habeenimo talaada oo arbaca soo galayso qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeenu marina qaybtan waxaanu kaga hadlaynaa Iran mudooyinka dhow waxaan soo wadnay Iran waa isdiyaarinaysaa Israa'iil waa isdiyaarinaysaa waa la isu dhaarsan yahay kan hadda warkii waa soo taray leeyihiin wariyaasha Iran ku sugan waxay leeyihiin deegaanada sharqiga ama bariga gantaaluhu xoogooda ma jirin dhankan kale gantaalahooda iyo waxooda iyo dhigan jireen hadda wadankii oo dhan lagu fidinaya maraadiq sharqiya la yiraahdaa gobolada dhinaca bariga oo dhan gantaalo waxa la geynayaa wajaan ah Israa'iil iyo cidii la jirta iyo meel kasta waa la garaaci rabaa baabuur si ka hor imaana gantaal saas u socdo saaran baabuur kale xagga kaaga hor imaana yiraahdeen magaaladii iyo wadooyinkii waaweynaa oo dhan gobolada baabuurtaas socotay gantaalahaas la geeniyay xaalku marka waxay yiraahdeen Iran caadi ma haddaba aan idin tuso telefishinka Al-Arabiya oo warbixin ka qoray wuxuu leeyahay warbixino la helayo waxay sheegayaan Tehran waa Iran
inay markaa sawaariiqdeeda u rarayso dhinaca bariga ay geynayso iyadoo u soo diyaarinaysa jawlo kale ama wareeg kale oo dagaal oo cusub oo ay la geli doonto Mareykanka iyo Israa'iil jawlo cusub aan galaynaa nimankii manaadiq sharqiya la geynaya gantaali marka xaalku marka halkaasu maraa adduunyada hadda waxaa ka sheekeynayay dagaalka Iiraan waa ka beel walba dagaala socda Suudaan waa aragtay Yemen waa kaas nagtaa la isku hayaa meel aan la iskaraacin male ilaahuna mooti waay xaalka adduunku adduunyo fiican mooya ka adduunyada meel kale u sii socotay ilaahay ha badbaadiyo dadka muslimiinta haddaba barnaamijkaygii caawa inta ayaan ku soo gabagabaynayaa ha iloobinina barnaamijyadayda galabnimo iyo kii subaxnimo qodobo aad muhiim u ayaa ku jiray inta aan daawan iyaguna way daawan doonaan inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo